muqdisho oo ah magaalo madaxda wadankeena Soomaaliya waxay waqti ka hor hoggaan u ahayd caasimadaha wadamada aynu dariska nahay iyo kuwa kale oo inaga fog intaba waxay ugu sareysay bilic iyo horumar intaba maanta ma aha sidii hore waxa sidoo kale tagay oo tilaabsaday wadamadii la dariska ahaa caasimadahooda oo muqdisho horay ay hoggaan ugu haysay muqdisho oo xaalku ku xun yahay waxay xog wareysatay oo sheeko ay isdhaafsadeen qaar ka mid ah wadamada la dariska ah magaala madaxyadooda waxay sheekadu ku bilowday muqdisho sidani iska warama wadamadii aan hoggaanka quruxda aan u heen jiray sideetihiin waxa idin xog wareysanayo waa muqdisho ayaan iska baro Addis Ababa la yiraahdo ana ka horumarsan maanta tareen baa dhex qaado xarumo madax kulmisa igu taal ee muqdisho ay ma gaartid inkastoo muqdisho jaar aynu nahay midab iyo afna aynu ka simannahay dhiiga buutaana la yiraahdo sideena kula rabe horumar laakiin waa mushkilooday muqdisho waxa kula hadlayo waa Kampala qurux caasimad iguma gaartid oo maanta ana gurmadko ah inta aad ani i wareysan adima iska warqabtaa muqdisho waa nabad magac miskiin kama ihi Nairobi baa la yiraahdo daarahan aan ku faano ee adiga aan kaasito dadkaaga dhistay ana canshuuraan ka qaataa taa waxa ii dheer Obama marti qaaday adigana ku aamini waay ee muqdisho macna maanta milhid ee ana ka muunad qurxan Addis Ababa Djibouti Kampala iyo Nairobi horta aan idin waramo inkastoo aanan ahayn muqdishadii aan ku faani jirteen balse maanta waan ka soo kabanayaa oo colaad baan ku lumay maalintan soo muuqdana miyaarad baan idin noqon